kulan wacan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii sheeko waana sheekadii la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel qaybteedii 49aad ama 49aad dhegeysi habboon oo aad u xiiso badan waa tahay qaybtan 49aad ee sheekada waxaynu uga bilaaban doontaa Barni oo ka war heshay khilaafka waalidiinteeda iyo la talintii aabaheed. warheede iminka mid igu soo dhacday balniyow arman waa gabadhaydii Barni ahayd aanu sheegaa siduu xaalku yahay. intii jira dixle afkiisii ka dhamaan oraahda ayaa durbe waxaa soo dhawaaqay taleefankiisii uu weliba nambarkii Barni ah uu ka qabtay intuusan asagiiba hadlin ayaa Barni ku tiri aabe ii waran xaalku waa sidee adigii hooyo waxaan maqlay inaad isku dhacdeen bal maxay yihiin gabadhaydii aab horta aan ku waramo hooyadaha wiyi maxaad ku taqiin. Barni oo dhool cadeynaysa ay ugu hadal celisay aabe siday tahay inaad ku qaabishaa wanaagsan wax walbana ayadaa iiga warantay marka aabow hooyo tookadan igu hadlay inaan soo celiyo adigana dulqaad muuji. warniyahu anigu waan kala yaabay barnaamijyo kala duwan baad mar waliba dhageysataa kuwa waxaad dhageysataa aad u cajiib badan oo maskaxdaadaba sii kordhinaya waxaad dhageysataa sheekooyin niyahu sheekooyinkan iyo barnaamijyadan halkeed ka heshaa saaxib adiga waad warlaadaas u maleynayo waayo waxaan ka dhageystaa barnaamijyada iyo waxyaabahan kala duwan aad arkayso waxaan ka dhageystaa idaacadda Hirsamo. warniyahu Hirsamadu FM la dhageysta miyaa ii sheeg bal maya FM la dhageysta maahan Hirsamadu waxaad ka heli kartaa moobilkaaga qaaska kadib waxaad tagaysaa bartaada YouTube waxaad qoraysaa Hirsamo Tube Media waxaad heli doontaa barnaamijyada iyo wararka aan hadda heesto. warniyahu mastidaaba waraha waa sida isla haddaba booqo barta internetka ee radio Hirsamo ee ah Hirsamo Tube Media. warniyahu waad ugu ogtahay inaan booqdo Hirsamo guul baan leeyahay barnaamijyadan baan ka helay inta badan aad dhageysanaysa. Hirsamo waa guushaada waa guusheena runtii. oday jaraad dixle oo isleh alla yaa islaantaadii mar ku tusiya
misna qayla sheegtay ee aanad juuq dambe ku odhan ayuu gabadhiisii ka codsaday inay arrintan soo dedejiso. Barnina waxay u tafaxiidatay isu soo dhowaanshaha labadeeda waalid iyo khilaafka kala soo taxnaa aabaheed Jaraadixle iyo abtiyaasheeda, waxayna istusisay inay arrintan kala kaashato jacaylkeedii Baaricadda ahaa, maadaama Baaricadda uu ahaa wiil ku wanaagsan xalinta khilaafyada jira. waxaanuu hibo alle u siiyey in Baaryare gartii uu galo aysan fashil ku dhammaan. Barni isla dhaqso waxay koolgaraysay jacaylkeedii Baaricadda ahaa si ay kaga waranto arrimaha ka aloosnaa waalidkeed. Sidoo kale Barni waxay ku guulaysatay in jacaylkeedii Baaricadda ahaa ay u soo heshay qorshe uu ku imaanayo halkay iyadu joogto. ayadoo damacsan in inantii Barni ahayd ayay wacday baarigeeda, waxaana dhex maray weedhahan soo socda. magacaygu waa Torbaca Boqol Baalweyn. waxaan ku faraxsanahay idaacadda Radio Hirsamo hirgelinteeda iyo helisteeda. waxaan leeyahay idaacadda Hirsamo way horumartay, waxay gaadhay horumar aanan gaarin warbaahin FM ku shaqaysa iyo warbaahin SOL laga dhageystay intaba. marka idaacaddan way horumartay, barteeda YouTube-kana in badan waan ku taxanahay, waxaana ka dhageystaa barnaamijyada ay soo saaraan wariyaasha ka shaqeeya idaacadda. waxaan leeyahay markaa guul iyo gobonnimo bahda Radio Hirsamo. aan leeyahay weligeena hankeena ka guungaara. waa hagaag dhegeystayaal, waxaa halkaa inooga dhan sheekadii la magac baxday Laab Mid Ah iyo Luur Jacayl qaybteedii 9. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. halabuurka sheekadanna waxaa iskale islamarkaana qalin ku qaatay Elabwan Ismasi Tuusi. noqo sheekadan qof ka sheekeeya balse ha noqon qof looga sheekeeya. waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.